Hi everyone, kusoo dhawaada channelkayga nabad iyo naxariis iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato. Waa rabaab sabriyo oo markale soo noqotay. Waxaan ii wadaa maanta bahalkaas arkaysiin, of course Soomaali wax lagu dhaho ma garanayo, laakiin waa cinnamon roll. Waa easy ah oo puff pastry already ready made ah iyo sauce-kaas cad sida loo sameeyo baa maanta ii wadaa. Daawasho wacan. Marka wuxuu ka kooban yahay soft cheese, sokor, butter, caano, puff pastry-gaas ready ah, iyo weel kooban, cinnamon iyo powder sugar, icing sugar ama powder sugar hadba saa u taqaanid. Intaas u baahan tahay wata icing sugar-ka. Weelka round-ka saas u ah ayu weel anu kale kaan sameynayo zaaid buu u yar yahay, weelka dhan muu buuxin. Milk, butter, cinnamon iyo normal sugar, intaas un baad u baahan tahay. Sida loo sameynayana waad arki doontiin insha Allah. Mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhawaada. Daawasho wacan. Subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-kana waa dhinaciina insha Allah hadaad videoyaashayda ka hesheen. Marka wakaasa maanta waxaan ugu soo celcelinayaa yacni waxaan rabaa inaan dushiisa wax ku qorqoro laakiin kuma qorin sida loo sameeyo ni tusi doonaa hadda. Marka hadda waxaa sameynaysaa cinnamon-ka waa cinnamon shiidan waxaad ku daraysaa, waxaad ku dhex qasaysaa yacni sokorta adu waa koob halfkeeda inta kugu filan. Pastry-gaada intuu la egeeyo ku xiran tahay. Cinnamon-ka waa qorfe, Soomaali waa qorfe, waan ka fikiray waa qorfe shiidan. Marka si fiican baad iskugu dhex qasaysaa, asaga iyo sokortaad isku dhex qasaysaa. Si fiican markaad iskugu dhex qastid, yacni markaad si fiican iskugu dhex qastid wuxuu noqonayaa color brown ah. Si fiican saas iskugu dhex qas. Marka wakaas si fiican buu isku dhex galay. Hadda waxaan sameynaynaa puff pastry-gaas oo ka soo qaadanaynaa. Meelaha waxaa ka heli kartaa supermarket-ka, haddaad sameysan karto waqti u haysidna waad sameysan kartaa. Marka puff pastry-ga zaaid uma weyno, waa iska medium size, kuwa ka waaweyn baa jira u maleynayaa. Laakiin aniga kii yaraa baan ka soo qaataa. Marka puff pastry-gaada wakaas fridge-ka la geliyaa, laakiin hadda maanta waxaan geliyay freezer-ka siduuna iga jilcin. 2 qaado butter ah aan maltigareeyay, aan dhalaaliyay yacni baan xaggaas ku haystaa. Soo butterkaan kor marinayaa siday sokorta iyo qorfiha shiidnaa isku dhex qasnaa ee si fiican ugu dhagaan. Soo butterka saas u marinaysaa ama brush ku mari ama gacantaada ku mari, markasta waxaa haysatid baad isticmaalaysaa insha Allah. Haddaad doonto qaadaad ku dhex marin ku qaadi kartaa, ku marin kartaa. Butterka ku spread garee ilaa meel kasta ka gaaro. Haddana waxaan ku soo haray sokorta gacanteedaan u isticmaalayaa, yacni gacanteedaan ku spread gareynayaa. Marka spreading-ka markaad geesaha marka ugu horeysa waad ka bilaabi kartaa and then you can work your way. Ani hadda all over baan iska sameeyay, hadba meeshaan siraahdo way bannaan tahay baan ku shushubay. Marka meelaha yaryar ee space-ka leh bannaan ama koonayaasha dad aragtid waad ku shubi kartaa. Wakaasa sokorteeni, butterkii, qorfihii shiidnaa. Marka hadda waxaan sameynaynaa waan duuduubanaa. Marka waad duuduubasaa wax yar uu yara adag yahay duubitaankiisa, laakiin it's okay. Especially markaa wax duubaysid easy ma aha, pressure baa ku saaran. Marka hadda saas u duubtid waa wadaysaa ilaa dhamaadka. Duubitaankaasaad ku wadanaysaa, bacdana waad iska reebaysaa. Tartiibba bacda iskaga reebaysaa suu kaaga yacni kaaga go'in. Marka wakaasa halfway through aan sameeyay. Inta hartana yacni kaamirada rabay inaan igu tuso. Marka wakaasa saan u duubay. Si yaryar waa u jarjaran kartaa, anu si waaweyn baan u jarjartay. Yacni waxaan ka jeclahay waaweynka yaryariiska, laakiin adugu si intaas ka yaryar waad sameyn kartay, laakiin anu ma sameynin. Asaga dhanba waxaan ka dhigay 5 xabo. Marka waxaad soo qaadanaysaa weelka aad oven-ka ku gashan lahayd ama furinka.
marka soo qaadatid waxaad ku shubaysaa butter baad marin kartaa, spray oil, spraygaas waa olive oil. marka hadda waxaad sameynaysaa soo qaadanaysaa, waad aragtiin inaan usii waaweyn baan rabaa sidaan ii sheegay. hoos ba saas uga soo yaro durjinaysaa, farta uga yara gelinaysaa, anan meeshaadaad saaranaysaa. hadda waxaan isleeyahay maxaad u yaryareyn weyday, bahalka dhan uu ku buuxin lahaa, laakiin dib ma laha. intaasaa nagu filan. hal xabo kala dhexda qurxiso way iska fiicnaan lahayd, laakiin wakaa saasuu kusoo baxay. marka ovenka baad gashanaysaa 25 minutes. intuu ovenka kugu jiro sooskaaga baad samaysan kartaa. condensed milk waad ku dari kartaa haddaa rabtid, haddaa rabinna kan baad samaysan kartaa. waa soft cheese, caano iyo sokorta powderka ah ama icing sugar. marka intaasaan isku daray. marka soft cheese-ka waxaan kasoo qaaday 2 qaado. condensed milk uu ii yaalay, laakiin sooskan waxaan u samaystay because creamy bay u dhadhantaa. condensedkana zaaid buu u macaan yahay, so creamy tastigaan rabay. iyo caanaad ku darasaa, waad isku dhex walaaqaysaa intaas. hadduu burburi waxaas kaaya because soft cheese-ka wax yar ka hor inaa banaanka soo dhigay ahayd, waan ilaaway. burbur yar buu yeeshay, so waxaan sameynayaa burburka sidaan uga bi'iyo mashiinka gacantaad isticmaali kartaa because wuxuu yeeshay burbur yar. gacanta xataa waan la galay, burburkii weli wuu ka bi'i waayey. so mashiinkan iska isticmaalayaa. waxayna qaladid dib ma laha because maqaldama waa ilaahay. wax kastana barashay leeyihiin, waa laga bartaa. marka wakaasaa next time aad rabtid inaad samaysatid soft cheese-ka banaankaad sii dhiganaysaa inta qaadad isticmaalisid insha allah. marka burkeeni ovenka uu kasoo baxayaa, wakaasaa saa aragtiinba golden color buu noqday. waaweynkan anaa ugu talagala saan ii sheegayba, aduu intaas wad ka yaryareysan kartaa insha allah. marka hadda sooskaad korka uga shubanaysaa. sooska markaad korka uga shubatid waad sugi kartaa yacni ilaa uu ka kuul gareeyo, adna sooska ku shuban kartaa ama straight away waad ku shuban kartaa. marka wakaasaa I hope inaad ka hesheen videogan. channelkaygana haddaad ku cusub tahay subscribe-ka, like, share and comment insha allah. haddaad su-aal qabtidna commentka igu soo sheeg. haddaad yacni ra'yi ila wadaagaysidna waad kusoo dhawaan kartaa. thank you for watching. mar kale, mar labaad, mar saddexaad, mar afaraad, nabad iyo nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato. marka wakaa cinnamon roll-keeni qof walba sibuu u sameeyaa. anima soo record gareeya wax youtube-ka kaliya aan isleeyahay u samee oon guriga laga cunaynin. cuntada in la qasaariyana ma fiicno. just waxaan sameeyaa waa waxaan guriga u sameynaya ama maalintaas aan cunayno un baan duubaa. wax kaloo zaa'ida ma sameeyo oo ma la daadinayo ama la qasaarinayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.